بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال كسو دبادة waxaad ku soo dhawaataan buuggeeni Mega Book of Modern English Grammar aynu ku balansanayna halkan idinkugu soo gudbino insha Allah buugga maanta waxaan ku qaadanaynaa beedka lixaad ayaa tagaysa sagaalaad ayaa tagaysaan beedka sagaalaad ayaa tagaysaan casharkeena waa numberka lixaad oo aan ka bilaabayno parts of speech insha Allah qaybaha hadalka aad ayuuna muhiim u yahay buugga insha Allah intaan buug ku guda jirno waxaanu ka qaadanaynaa inta ugu muhiimsan buuggeena insha Allah Mega Book of Modern English Grammar-ka meelaha ugu muhiimsan aynu ka qaadan doonaa Mega aan bilaabno casharkeena maanta waxaanu qaadanaynaa sentence and its structure okay buugga laakiin waxaan qaadanaynaa qaybaha hadalka parts of speech baa loo yaqaanaa insha Allah qofkii rabo daneeya hanagu soo biiro insha Allah asxaabtaadana waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin adiguna ku soo xiray in badan oo asxaabtaada ah sentence and its structure sentence waa jumlada and its structure iyo qaab dhismeedkeeda ayaan baranaynaa jumlad iyo qaab dhismeedkeeda insha Allah in badan ayaan markaas arday fara badan ayaa naga soo codsatay inaan u soo gudbino casharada sidaan oo kale markii la gaaro arday fara badan ayaa danaysa inay nagu soo biiraan haddaba waxaa loo yaqaanaa parts of speech okay parts of speech qaybaha hadalka waa qaybaha hadalka waxaanu marka parts of speech qaybaha hadalka words in a sentence erayada words erayada in a sentence jumlada erayada erayada words erayada in a sentence jumlada ku dhex jira are divided waxaa loo qaybiyaa into different kinds noocyo kala duwan according to ayadoo loo eegayo to the function shaqadooda in it ay markaa hayaan we call them waxaan ugu wacaynaa parts of speech qaybaha hadalka ayaan ugu wacaynaa inta okay marka waxaan nala siiyey ama midda inta taalo nala eg they are 8 in number waana 8 tiro ayaa 8 ayay kala yihiin ayaguna haddaba 8 maxay kala yihiin waan kala qeexi doonaa insha Allah mid ayaan u kala qeexi doonaa waad u jeedaan midana u jeedin waa noun waa magac okay magac pronoun magac u yeel adjective sifo verb fal adverb falkaabe preposition meeleeye conjunction isku xire okay midka ugu dambeeyo oo ah interjection okay midka ugu dambeeyo waa interjection oo waa maxay calaamatul cajiib erayada calaamatul cajiibkan oo isticmaalno interjection waxaan nalisi marka waxa loo what is noun waa maxay noun haddaba su'aashan buugga ma noo qorayo laakiin aniga ayaa ku soo daray what is noun waa maxay magac maxaad ugu jawaabaysaa intaan noun is a word that we use for giving a name to a person place thing quality or idea or action is called noun magacu noun magaca a word waa eray that we use kaasoo u isticmaalayno for giving inaan siino a name magac inaan siino to a person qof inaan magac u bixino place inaan meel magac u bixino thing inaan shay magac u bixino quality inaan tayo magac u bixino or idea ama fikrad or action ama fal inaan magac siino is called ayaa waxaa la yiraahdaa noun magac baa la yiraahdaa tusaale the girl gabadha spoke sweetly to the stranger inta bal ilaag the girl spoke sweetly to the stranger the girl gabadhu spoke sweetly si macaan bay ula hadashay okay sweetly waa si macaan to the stranger ajnabiga girl and stranger gabadhu and stranger iyo ajnabigaba are known is here waa magac are known is here halka magac bay ku yihiin haddaba girl waa gabar waa mugta gabadha iyo qofka ajnabiga shisheeyaha ah labadaba waxaa loo yiri waa magac labadaba waa magac similarly si lamid ah ayaa loola jeedaa ereyga ogow similarly si lamid ah waxaa la mid ah George okay George aa la mid ah George waa maxay isna waa magac George waa magac qof
Ethiopia waa magac place oo meel ah beauty waa magac honest beauty waa maxay qurux honesty daacad ire waa habo okay habo peril dagaal are all nouns dhammaan waa magac haddaba adigu waxaad raadisaa dhammaan magacyada luqadda Ingiriiska insha Allah adigoo raadiso ayaa ka fiican mar waliba waxaanu qaadanaynaa mid maanta waxaan qaadanay waxa loo yaqaano noun ayaanu qaadanay insha Allah maalin kalena xigta haduu Ilaahay yiraahdo ee berito jumcada ah pronoun ayaan qaadanaynaa sidaas ayaan ku sii soconaynaa intan ayaa ugu muhiimsan insha Allah buuga meelo fara badan way jiraan waynu gaari doonaa insha Allah haddaba waxaa idinkaga tagay sida ay nabadgeliyo